taliya waa kalluun markaasuu yiri ma bahalkii quranka badda ku jiray xerada iga keentay waraa la xiran ninkan horta odagoo dukanaya ee hooy ii soo tuurtay jab malay marka qabo markaan sidahay oo sujuud ka soo kacay gacanta ka laabtay marka oo ku dhax malay aabe xitaa waa qosay sababta ku baxay shukaansiga kulli aniga soo garaadsi iyo oo yaraa كورن سدوها سنحرير ك مربوط طبعا مرحلة إنه صومنا رجع سنحرير كل كي قبلنا والحياة هذا دون مش شو كان سده أوكي حساوده أوكي سدوها يوقفوها يهدي هذا اللي يكون مقطوع كذا دوية كان ما أنت هذا كان ما أنت تجرب أوكي كاس ما عرفت صدم سنة ما فرت السنة بالكهرج أوكي وسؤال في عن شو كان سجى كل أنا سو جراتسي ويرا ما بدنين لأنه شو كان سجى وحوها مد هدف لقلي أنا إذا سكور سدو ما دام هدف لقلي هاي لبعض أسقف حليل كودا كوكبنا أيجا ولوجه الكيوك أصحابك وقرصون معها وأنا لوجه ما شاء الله صعدين تاي buur haddii calaf jirin oo la kala booday iyo waa gooni marka shukaansigaas inta badan wuxuu ka dhici jiray guryaha dalaan inta waxaan xasuustaa xaqliyan balahaaba in gabadha oo wiilka saaxiibkeeda uu guriga u yimaado waa loo ogolyahay wax laga yaabaa ma aha imaanshada laba waa si zamaale ah saaxiibtinimo shaqo ama iskuul ama waxbarasho inaa ugu timaado shukaansi maaha وقبل أنت أقول لك معرفتهين أما إيكو برتو غير كذا هذا وأيو جلاس أو حسلا فرسانيسي إذا ذكر مريسي كاميرا مشكور عن جرت لأنه أخلاقياتك قيادتك اللي بدو ملتزم كويه إلى العالم يعني أمر وعودين جردينو يكون كل شيء يهدي لايبراري اللي جاري سلتيسان وسعلني حمرنا الحمد لله رب العالمين وحلقة عبصده hebel ee yaa bursaday ama maqlay maana wax kale oo laga baqay ma jirin dawlad adag ka jirtay amni adag jiray ilaa amniga nasiyo tan shukaansiga marka badana guriga ka dhacay in gabadha gurigeeda lagu shukaansado gabadha iyo wiilka isjecel oo saaxiibada inay shanameys ku raacaan shay iska caadi ah oo reerka og yihiin waa riwaayad markay jirto oo wadaayo oo geenayo oo la soo celinayo oo xiriirkooda jacaylna kii oo balaato oo platonic love الحب العذري إنه gabadhaas jir ahaan inuu ninkaas ku xadgudbo ama saqar jaanimo aan looga baqayn marka noocaas oo ahaa مثلا galaaska xitaa gabadha saaxiibkiin waa lagu yahay hebel hataa marka qaarkood waa iska jirtaa qaacido iska shaaday in nin saaxiibka oo kula gala meesha era iska caanaha hebel waa balooga hebel waa ka qaadaa laakiin inta badan la isku ixtiraamay oo la hebel waa isla socdaan waa la isku ogyahay waxa adii saaxiibka ka noocan ma dumaasho amal oo la maamulay gabadhii ayadana qof siidi amal had balqadin ay tahay marka waxay weydiisay hadda Soomaa waa ka duwan yahay kan waa digitalkii صح nolol ordayso waa kan nolol ordayso waa laana waxa arkay مثلا nin shukaansan ay laba gabdhood Facebook marmar dhalinyarada waa la shaqeystaa inta badan macalin oo ah error dhacay mid oo hadda shukaansan mid kale magaciidu qora kaasoo dhaha maya waa qaldan macamul wax saas adiga raalaha marka noloshaan sida ay u ordayso digitalka oo khayaalkan u orda wax xadiisan maaha inta badan shukaansiga hadda way jiraan أمة محمد بخير مرة بأمة محمد خير وهجرة لكن هدف درب أنا جرت يعني هدف أونلاين. دي صفة عم في السلطان. عنتظر الصومالي هذا ما تيجي عنت اللي يقعنه وما قاعد هذا اللي تريك رواي. صفة. هذه خصوص هذا دي بوعلس مكان يراد
xilliyada hadaan ka sheekeynayay 30 sano ama 40 sano ama 40 sano ka hor cuntada Soomaalida iyo cunto magaalada aad ku barbaartay xamar ku barbaartay cuntada Soomaalida iyo cunto jirta noocyadeeda dheefteeda wax ay kaga duwan tahay ma jirta hadda Soomaalida iyo cunto dhadhan dheef iyo nooc asaasiga waxay ahayd cunnada oo wadanka ka soo baxa aan cuni jirnay oo asaas uu yahay labada dalag ee galleyda iyo masagada oo labadaba noo baxa waa iska caadi taqliidiyan qoys walba Soomaaliya ama ha ladnaado ama sabool ha ahaado canjeero subax cuna marka nina beer iyo hilib ku goosan karo nina macsare iyo shaah ku darsanayo macsarada xitaa maraa la weynaayay subag buure haddii saliid urto ajir jirta waxyaabaha aan aad ku xasuusto waxaa kamid ah kacaanka markuu dardarta ahaa in cuntada fayl loo geli jiray saf in lagu qaajo cuntada kaar waxtaa adoo lacag haysta macnaha qolada degmada ay imaanaysa guriga qoyska la fiirinaya inta qof uu kooban yahay 6 qof waaye kaarkaa loogu qoraa 6 qof garaamkooda ay doonanayaan mooye ka badan dukaanka marka dukaan dowladda leedahay dowladda ma laha dukaanka waa private laakiin wuxuu ku qasban yahay inuu kaar wax ku iibiyo hadduu ku iibin waa la xiraa lacag ku iibsan kartid lacagta ku iibsanay laakiin ma gadan kartid garaam ka badan dadka kuu qoran okay 6 qof oo ku qoran garaam 6 qof alaga gadaa okay sonkorta waxa loo geli jiray fayl wax xasuustaa galleyda fayl aan geli jirnay suuqa xamarjiido magac cusub wixii marka intaas ka baxsan waxa la jiray suuqa madow suuqa madow lagu qabtana waa qatar xabsi waaye adada inta badan soor waaye olole waxaa jiray marka la jiray cuna malay bilowday oo la kowsaday 76 dadka in malayga la baro oo malayga cunudiisa aniga waxaan xasuustaa hooyaday inuu aabahay malay u soo gaday marka malaygan anaga inaan noo ogoleen asagana inuu cunayn oo wax oo qurun u haystaa laakiin hooyaday walac aan u soo gaday marka waa iska sheeko fanay oo kaaga sheekeynaa adagoo dukanaya ee hooy ii soo tuurtay jab malay marka qabo markaan isdhahay oo sujuudi ka soo kacay gacanta ka laabtay marka dhulka ku dhax malay aabaxta waa qosay salaad ka baxay marta uu dhahay ha bal iska cuno dhahay wax qurun waaye wax fiican ma aha iska marka dawladda balay ay bariisada soorta oo lagu qadeeyo malay lagu cunay marka dadka xataa ilbaha oo xamar degan taas aan jiro hada malay ma la cunayn waxaanan u araynaa ama u tiirinayaa hilibka iska buuxay marka malay ma loo baahnayn mar dambe waxa xasuustaa aniga oo xalana aan galay national service yar asxaabteyda kamid ahaa wala saxada meesha moogta sanduuqada marka toona laga xaday marka ninka taliyaha noo ahaa حسين عشكر إلى عفوا سي نيروبي أنكو أركي لأن حقيقة نورون وها لكن دقن كي هراء صومالي ده هيستا مركا أو دعوة يركو داي تلي ولا يحضي حالة حدو المكاسوري ملاي مركاس ملاي وحمر موت حسين عشكر طبعا وحن قياسها وايقنا حالي هذا ملاي أو الموت المركا أورو كوجرو بايلود دي لها أرضا كميدا oo nin faniya ah wuxuu taliye waa kalluun markaasuu yiri mabaalkii quranka badda ku jiray xirada iga keentay waxa la xiran ninka horta marka waa soo dhawaatay inaan malay la cunin waxay ka sheegay statement inta dabadii waa marka oo dadka qaarkood ay wax quruna ay u haystaan malay ninka xitaa mihnada kalluumaysiga la liidayo leeyahay gabadhiis guur ma istaashay marka kalluunka la xayeysiinaa xilligaas cuntooyinka asaasiga oo ku jiray inta kawaanka oo kaleete jadwal loo sameeyay waxa xasuustaa in 4 maalin malay tahay 3 maalin xoolaha markii dibada askarta ayaa loo qaaday dagaal jiray marka cunooyinka asaasiga ay ahaayeen soortaas in la cuno ama muufo la cuno doorkii habeenkii cambuulo in la cuno habeenada jamcada bun in la dubo ممكن عمبولة دانجا عسرية واي waxaan xasuustaa مثلا anaga dabaqadeedii
dabaqadeeni maalin jimcada baasto waay marka waa la sugaa maalintaas waa maalin oo cajiiba baastada tii dalka waay oo warshada baastada aad iyo xaqiiqatan u macaaneed tii xamar qamadi waay laga sameeyey marka maalinta jimcada waa maalinta baastada waa feesto waay waa maalin oo dabaaldeg uu jiro bariiska sabtaa la cuni jiray inta badan sabtaa la cuni jiray cuntada marka waxay iskada cuntada iswadaniga ah waxtarkeedu waa fiicnaa xaqiiqatan laannahu goosaarta xaggeeda qish ma jirin saliidda macsaro saafiye waay subaga sidii loo keenay waa saafi malabka waa saafi marka malabka iyo hadda iyo saliidda iyo waan waxa soo farshiid alaga jira farshiid taqaan dhalinyaraysa waay dhaladaas farshiidda duceeya jiri jirtay dhalinyaraya jiri jirtay liitarkii nus liitarka caanaha warshada aanay ahaayeen shaakir waxyaaba kale xasuusto waxaa kamid ah oo aan isleeyahay hooyooyinkeenii xilligaas waxay ahaayeen dad thaqaafad cunto leh waxaa kamid ahaa aan xasuusto caanaha asaasi ahaayeen yar iyo weyn waa la cabay hadda la macbaan caanaha waa xasuustaa xilliyana lagu dirqi jiray waa jirtaa dirqi soo taqmaano oo lagu qasbi jiray laakiin waa daruuri galaas caana in la cabo maalintii ama adii qadada cab ama cashada cab adoo qof weyn caanaha lo-da weliba lo geelan mar dambe noo yimid geela waxa waaye waaba laga cabsi jiray iskool xamar jadiid waxaan xasuustaa suuq xamar jadiid oo cawska geela afartiisa lugood ninka dhex baxo geesi aan dhinayn oo ay makhluuq qalaba loo arkayay caanihiisana waxaa cabi jiray dadka jiran iyo qarasbaxa iyo waxaas iyo hilib geelna ma laguna jirinba hilibka xamar lagu cuno lo oo ahaa iyo ari oo ahaa markan iyagoo goosaartana saafi ahayd cuntadana cuntadaas wadanka ahayd xataa baastada loo kale ahayd baastada lagu sameeyo dalka ahayd cabitaanada caanaha asaasiyaha waxaan rinjiga oo la qasaayo ma jirin allah mustacaan sabtaan waxaan xasuustaa waxaa la cabi jiray sharbeed wax la yidhahdo sharbeed hadda ani ma arkin waxa ugu dhow ku qiyaasi kara waa fiimtada midabkeeda inuu leeyahay ogahay sharbeedka marka waxaa ahay sab leannahu sab dad badan imaanayna caana lama cabi karo ma loo haayo macnaha dadkaas kamidaas marka sharbeedka la qasi jiray aashuuna lagu qasi jiray wax xasuustaa aashuumaa noo yeelay waa la iska dhaqaaleysanaa biyaha xitaa aashuuna lagu shubanayay dhar laga dhaqdo laga qubaysto oo laga nadaafadeeyo guryo la rugaayo ma jirin leanno guryaha ciiday iska ahaayeen carshaanay ahaayeen marka cuntada waxay ahayd cuntadaas oo wadaniga ah oo deeftana leh koriinkana xaqiiqatan wuu fiicnaa matalan xalwadoo kale waxaan xasuustaa saafi ahayd xalwa saafi ahayd xalwooyinkii magacyadii daqaaraa weli jiro baraandhigadii boqol sano jiraa marka caddeeyaa jirtay xalwooyinkaasaasay ahaayeen nadiifay ahaayeen saafiyay ahaayeen مثلا dadku ayagoon diinta aqoon u lahayn waxaa jiray cabsi abuura oo ilaahay laga baqaayo oo مثلا in wax la qiyaano laba siba looga baqaayo ilaahayna looga baqaayo sharcigana looga baqaayo qiyaanada ficneen waxaan xasuustaa dukaanka ninka iska leh xaafadan oo kale maxamuud weyn ilaa dukaankiisa metro kuba dukaan aad u camirnaa dukaanku furno ka tagaa salaad iska aada waxabaay madan ma jiraan qaanadoo lacagta isaga jirto dadku qulubtooda badanaa asaafiyeed qabiil ma jirin waxaa jiray xaafad weerada xitaa oo la isweereeyay xaafad ka xaafad marka raashiinkaasni wuxuu ahaa raashiin saasa dabaqadaha sare sheekaan ka haystaa way cunayeen baasada iyo bariiska iyo cuntadooda waxay u badneed hilibka meesha annaga hilibka weygii mar ama bishii mar aan cunaynay dabaqada oo iska xoogsadaa cuntadaas ku cunayeen waxyaabaan kale oo hadda oo aadka loo cuno ma jirin kafeega waa jiray raad talyaani waaye noocyadiisa oo dhan odayaashu waa cabaayeen take away ma jirin kafee laakiin waa la aadaya meesha la aadaya waxaa jiray kookada oo abeega jirta jira xusta kookolada marka waxaa jirtay waxaan iska dhaadhicinay yaraantii oo ahaa kookada raggaa cabo faantadane dumarkaa cabo waxaa kaloo guriga la keeni jiray kooka iyo faanto marka marti timaado
especially dad xoogaa xil loo hayo dayaashii oo kale nimanka qaba markay yimaadaan ama dadka xilka leeyahay faanta la keenaa islaan faadimo waa siyaadris leeyahay dukaan oo waxay lahayd fringeria oo koronto ku jirto soo gadaynay ma qaan reer magaalada waxay markii qofku markuu faantada cabo moo dhamaynayo xoogaa reeba xoogaas oo ku tashanayna daddan waxay leedahay khayr caadi laanu ma la arkay faantada maqti marka laba dhalo faanta oo kale wixii lagu reebo waa la isku darsanaa manager cabsidaan qofkana waxaan cabay maya oo lagu tashanaa ku dhaw maya dhaladii celinayna maqti adiga dhalada kala waxa iska leh washada Coca-Cola iska leh adiga marka xitaa kookada soo qaadayso in lagu yaqaano ina carbuun dhigto ina dhala kala geyso waa ma loo ogola marka geyntii dhalada aan ugu faa'iideysanaynaa mid isku darsano عبينا ده جبي سنة رضي العكس إذا لقاربه مركب فانتدا سلعبة كوكذا لعبة مناسباتك هي مرتدى والمجرين شراب كحوها بيو إن لعبوا عنها أساسي وما هي انتظر أو مناسباتك وحيد وبسكوت دولشة وأساسي هو إذا أنا سمعنا إيسا وحلا قصة معنا أنا ما أروح أو كلفات بدن لأنه دقاق ينوجو كنت دقاق يحوق برولس وطريقة قالب كيرو lagu sameeyo doolshaha taqamaan asna guriga yaala la sameeyo waa wax oo gurigiya marka waxa loo sameeyaa midna munaasabadaha dad imaan rabo kaleete ama hooyo inay qof u deeqayso kaleete waxa garab yaala oodka badana waxana lagu keenay jiray gobolada laana dadkeena xamar aday ku dhalaa darabta laakiin asalkaaga wuxuu jira gobol oo jira marka qofkii imaanayo baadiika imaanaya especially rabtay reemudugna wadada aad u ictimaada hilibka abtiyaal iyo reermka imaanayaan galooradii waasab oodkii dibi jamba la rijiraa jirto subag baalka qumbo weyn waayo caagama subag saafi oo ku jiro la keenaya مثلا dhanka bay malabka ana loo keenay jiray xasuusta malab saafiya marka cunooyinku waxay ahaayeen saasay ahaayeen wax yardaan ku daro timeka muhiim ah intada xilligeeda aan dib loo dhigaa waqtiga qadada waliba soo daahay waxa jiraan unada waalidka gacanta ku hay hooyada ayada maamulayso diyaar leeyahay wajiga qof kasta hadii ay timeka ka dhaaftay inaad helina macquul cunto meel lagu dhigan laano ma la jeclaan cuntada qabowda martay cuntada baartay hadana wax lagu qulay qalab dab ma lahaysan marka timeka quraacada time ay leedahay waxaan xasuustaa oo asleeyahay koriinka ilmaha qayb oo ka qaadanayay saddexda aqoon ma loogu sameeyay nuka si loo koriyo cuntada dhaxda jirta مثلا subax markuu quraacdo intervallaha xilligooda kale afar saac wuxuu jag qadada casirka oo kale cashada ka hor waa la cunayay cunooyin geesaha jiray doolshahooda markay samayso oodkaca koobka caanaha qasab timirta waa la mooraan waa jirtay marka isku engeyn waxa laga yaabaa shan aqoon cunto waxyaabaha aad u xasuusto waxa kamid ah qudaarta aad u cuni jiray qudaarta aad u cuni jiray iyo miraha yani ansalato ani meeshaan ka bartay يعني هذا واوي السمسان ما لهذا ansalatada lagu jarjaro dhuusta ama dhaqanada oo cuntada waxaan ka xasuustaa cusbo yar ama liin lagu daro aabahay kale markuu qadayna lama la qadayna feetiisa babayga waa waajib cuntada waa ka marka nidaamka cuntada wuu fiicnaa cuntadana duxeelaad iyo dhaafeelaad subagana waa lagu dadaalay subaga in la cuno sonkorta in aad loo cuno wax macaanka waa lagu dadaalay hooyo walba waxay ka fikiraysaa cunugeeda horta inuu buuran yahay cunuga caatada hadda waxaa la raadinayaa lacag lagu raadinayo saacadayntii berigaas waxaa la raadinayay buurnaanta qofka xitaa caatada waxaa la daninayay inuu qof jiran inuu yahay caato oo dabiici ah jirto fikir iyo aaminaada maba jirinba marka cuntada waxay ahayd waa fiicneed iyo iimaankuna waa iska jiray dadku waa iska iimaan qabay